haweenaydii shalay dhaaranaysay oo ku haysay walle inuu mari ama muqdisho ka tagi wax yar kadib inay afka furato ay tiraahdo ma wadanin waxan mana taageerahayo inna kayda shaytaani kaana daciifa saasay u tabardaran yihiin oo awoodoodu intaasay dhan tahay markay arkaan ummad soo jeeda oo dhaqankeedii akhlaaqdeeda difaacanaysa laakiin maalinkaad seexato waa lagu marsiinaya inta dhib dhacaya oo bulshada muslimka dhexdeeda ka dhacaya wax ka halisan ma jiro shuruuc gaalo in dal muslima inta loo jideeyo haddana lagu dhaqo arrintaasina kolba qaabay ku imaan wax laga daalayana maaha gaalada maanta joogta iyo hay-adahoodii iyo dadka u shaqeeyana kama daalaan markay waxoogaa caqabad waajahaan oo derbigu ka hor yimaado ma daalayaane intay derbiga ka laabtaan bay doonayaan mar labaad darishada inay ka soo galaan waa xilliga United Nationska gabdhaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah intay lugooyeen ay u soo dhiibeen shuruucda la yiraahdo shuruucda xeerka qoyska dawladdii xilliga jirtayna ay qaadatay madaxweynihii wadanka ka talinayayna uu bilaabay inuu ku jeesjeeso aayaadka dhaxalka culimadii Soomaaliyeed oo xilliga joogtayna ay diideen oo ka hor yimaadeen 10 ka midana tiirka la istaajiyo la toogtay xeerku waa xeerkii mid ka daran maalinka gabdho Soomaaliyeed oo la soo lugooyay iyaguna loogu talagalay ummadooda inay lugooyaan ayaa arinta keenay oo dawladda u keenay dawladuna qaadatay oo kacaankii qaatay ummadana heerka lagu gaarsiiyay musiibada ilaa iyo maanta aan la saldhigi la'nahay halkaas ay ka bilaabatay ma 40 sano oo tiih iyo wareer ah oo arintaasi ay keentay 40 sano kadib miya hadana xeerkii xeer ka daran oo ka magaxum oo ka foolxun miya hadana maanta ummadda leeyahay gabdho Soomaaliyeed intay keenaan qaata oo ma waxa la doonayaa hadana 80 sano dambe inaan tiih ku sii jirno xuquuqda Ilaahay hadana inagu sii habsato ummadda Soomaaliyeed aad bay u mahadsan tahay rag iyo dumarba wiilal iyo gabdhaba cid walba Ilaahay tabaaraka wa taala khayr iyo baraka idin siiyo maanta waad baraarugsantihiin ajaayib gaala ma daasho dadkeeduna ma daalaan laakiin kolba waxay tijaabiyaan bulshadaasi iyo siday u baraarugsan tahay tijaabo waay ku day way kadibna cadhada bulshada imtisaas lagu sameeynaya waa la nuugaya waa la dabcinaya haddana mar kale la sugaya sidaas daraadeed waxa la doonayaa inaynu foojignaano oo waxa lagu socdaay waa dhaqankeena iyo akhlaaqdeena iyo diinteena iyo akhradeena iyo adduunkeenaba rag iyo dumarba saalix iyo faasiqba culimiye caamaba madax iyo minjaba kulliina taagnaano waa hawsha iyada xilli walba waa in laga hortago waxyaalaha noocaas oo kale ah oo aynu noqono ummad diintooda ilaashada waxa maanta walaalayaal inugu socda hadaynu nahay bulshadan mukhattataat fara badan qorshayaal fara badan oo ay gaaladu wataan oo gaala raaciyadu wataan oo dad la soo isticmaalay ay wataan qorshayaal fara badan oo kolba dhinac leeynaga keenayo oo inta inugu hadhay diin ahaan iyo akhlaaq ahaan la doonayo in xididada loogu siibo oo inaga iyo gaaladu aynaan markaa waxba ku kala duwanaanin الله بانا قرآن كوشة تبارك وتعالى حسدا حسدد أي إذن حسديان درادد بفضائش يوناق إلهي إذن سيي أي دونيان إن أي لدق علمانو يقو كلا أدنقتان الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله الله تبارك وتعالى أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرامي ونفضله قيمة السيادة أبو السيي وحكو قيمة وكو فضله وكو كرامي رسولك وكو فضل بدنا رسول الله صدره
أيو إلهي تبارك وتعالى رسول أقدر أمد أطاعه كتاب إلهي سودة شيوكي أقوينا أقوقي مبنانا إلهي كتاب أقدر أمد إلهي وحكدر مسؤولية دي يحلكي رسوشا قادتا أمده هراء رسول قادو مركو لنتي النبي قادو نبي كلا كدن بين شرو مسؤولية دا سي قادي شري وسي وذي شري لكن إلهي وحو قدري نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنو سنبي الرسول كدن بينين waxay u baahan tahay marka mas'uuliyadii nabiyadu hayn jireen rasuushu hayn jirtay yaa la wareegay waxa lagu wareejiyay ummadana lagu wareejiyay iyada xilkii lagu wareejiyay inay khayrka faafiso xumaanta ka hortagto wanaaga u heeliso diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala garab istaagto khayrka ay faafiso iyada mas'uuliyada la wareegtay رجع ضمر وقرب تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمنين ترجع ضمر با وادد أيجو إسحجو إسشعل وادد كلا إسكحجة محي سميان يأمرون بالمعروف وناجي فران وينهون عن المنكر حمان تنوار ربان ويقيمون الصلاة صلاة ديتوسيان ويؤتون الزكاة زكاة ويديبان ويبحيان ويطيعون الله ورسوله إلهي رسول كيسنا ويرعان شتكوذ ويأطيعان ويكامر قاتان يا وايدتكاس ومؤمنين رقي الضمر بإلهي مقعابي مؤمن يا مؤمنات مسؤولية دا سنوا مسؤولية دا ومسؤولية دي لقد حلي النبي دا مسؤولية دي بأمدنا لغوريتشي أيضا وضع وكرب تبارك وتعالى آيات كلا إنوشها كنتم خير أمة أخرجت للناس وحاتهين أمد مد أقو خير بدن ضدك الله صاري أخرجت للناس أمد لبحيي الله صاري وقريه هذي ديقام ذي لقى صاري مهمة لو ديبي لو حنباريي مهمة دان الله صاري أمدها كلنا كم قواي أخرجت للناس توحيد كي بيحنبار سيهين أخلاق دي بيحنبار سيهين دين تي بيحنبار سيهين رقواناك دي بيحنبار سيهين أمديه كلي أقود بنيا محاي مهمة دو تهي markay ummadaha kale xilka ay xambaarsan yihiin Allah wuxuu yiri ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wanaagaad faraysan xumaantaad reebaysan Allah rumaynaysaan tilmaamaha iyo sifaadka intaad leedihiin baad ummadaha ugu khayr badantiin haddii aad lumisaan muhiimadda iyo mas'uuliyadda iyo xilka aad lumisaan bimaana khayriyadiini waa luntay لأنه وحوي مذب كينا أما وقت قد كسو حقاكتين أما قروح دينا أما إتال كينا أما الديقى مدينة أما قبائشينا الله يدين مدورنين الله طايدين مدورنين لكن وحو إذين دورتي حل إيا مسؤوليات آد أتاقنتهين ومضاها كلنا آد كقد وانتهين تاسا إلهي إذن كفضل لي إن آد وناقا فافنتيسا اسكو قرب سيسان أودو استاكتان حمان تكهرتقي ديدي الريبي ديدانا أودو استاكتان تاسا إلهي إذن كدورتي تبارك وتعالى وناقا إيا خيرك اللي إذن كسي هداد مركز ضيعدان ما تشيري سواه ومدني مركز وأمال بحيي وخيرك إيا وناقا حنبارسا وحلكي إيا مسؤولية دي أنبياء ضحشي وإلى قيامته كإيمان سوء الدون كالجبين يو حلك أي مسؤولية دا أتاجم واه مسؤولية دا سمرك ومسؤولية إن قد حيسا محايا لي الله إن أمري إن حقي سأتاجن هي الله إن قد حيا واه توحيد كيسي خير كواوين إن قد حيا واه
الله تبارك وتعالى مركو له اللي أهل الكتاب نصارى إيا كريستانكو إلهي عدنا هين عابده مركي له اللي وحلوي النبي صلى الله عليه وسلم وحد كتر هذا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كالا يو إمادة كلمة إنور حيسا أو إنور سمن أو محيتهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن الإلهي كلي عابدنا عبادتي سنة إن عدك للوذا جنين إننا قارك كلا إنوسا ربيا كتلقى إنه ندس عابدين أرنكا سوى أرن إنوس من أو إمادو كالا يكوده حايا لي عدقوني أولي ما جرتو ومسؤولية الجميع ننكي ضيع يلكي ننكي خدك كبح يلكي ننكي اللمي يلكي لكن هو مسؤولية إنه وضع تعالوا إلهي كوح كوني وكما خصيصين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيدا قرآن كأشيغبنا نبينا أعدي صلوات ربي وسلام عليه ورسولك حوليه صلى الله عليه وسلم عدي حمان أركتا حمان تاسي قعنتا وحكا قوتوها كريبتو هدو أول لي هايوا هداد أول دي لا دهي قعنتا وحكا قوت هدادا أود دي ليد الهين عربك هذا المركع نصيحة شيك هقرين هذا هدي هذا الكينا آد قبته أود كري ويدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركع قلبك ككهو لبسو قلبك ككرهيسو هتشعلان هأبوغين هتاجيرين قلبك هدبسو رسولك صلى الله عليه وسلم مرتبة الدنبا وقلبك إنك كهتا إيمانك ماشي هو ضعيف سنيد واحد بل في رصد السيد اللي يسوق حري حمان طول الريبو إيمانك يبقى اللي يسوق حري حرق أدق بو إلهي يسوق حري تبارك وتعالى سيد وكرت مرتبة دو أي نقطون إيمانك وكلا سريا واحد كل بظروفها يا حالة دمركك وهي ستيك حرنتها سيدا كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان مركا وحا كم موقده رسولك وحده صلى الله عليه وسلم من رأى من عدء ما كلا قادم إلهي مدين علمه مدح كريه مدهن ضمر كريه مدهن وضيال كريه مدهن لكن وحدي النبي صلى الله عليه وسلم لك وحده من عدي ومركا ومسؤولية نوضة تعالى سيدو كان الرسول كان صلى الله عليه وسلم وحي الحديث أم سلمة في صحيح مسلم وغيره مدحبا إيمان دون تبني صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أمراء مدحبا إيمان دونه مدحدا إيدا أو حي لا إيمان دونان وح شريعة وافقسن إيا وحن وافقسنين با وحد إنكرتان وقونستان إيا وحد أبكتان وفي عنبا ولا إيمان دونان محان سمينا رسولك إلهي وحو النبي صلى الله عليه وسلم روحي وحا أي لي مادين منكر كحن إنكرا أديدا كاسي النبي صلى الله عليه وسلم وبري النقضي إد ملي روحي كهدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابد بهذي لكن عدي الراعدة رالي كن نقطة كوقنا عدا منكر كودا يحمانتا أي ودان رالي كن نقضو كراعة كاوي ميتك يودماتي مركاسا وحي لذن أو رسولك إله يو مربا هدايبا مدحدني منكرات كان إيافدا لي مادين ما إنتان كوب حنون هب قادنا الله دقال لنو وميشا بكسارنا يجي منكر كودا با النبي صلى الله عليه وسلم مايا intay shanta salaadood dhexdiina ku oogahayaan oo tukanayaan hal dagaalamina buu nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin xumaantooda reeba oo fiirsada maxaa loo yiri hal dagaalamino ha ku kicina ayagoo munkaraad iyo waxaan fiicnayn la yimid waxa loo leeyahay lianna marka lagu kaco oo lagu baxo dhibka ka dhalanaya ayaa ka badan
dhibaatada ku jirta in loo sabro fujuurkooda iyo dambiyadooda loo sabro taariikhduna haddaad dib u akhridaan waxaa kuu soo baxaya ma jiro dawlad iyo madax faajiriin ah oo intay dambiye iyo munkaraad galeen lagu kacay oo laga faa'iiday taariikhda waa naadir waaye xataa dadka ku kacay saalixiin iyo fuqaho iyo culimo iyo akhyaarba ha ahaadeen saas daraaddeed buu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam dhibkooda iyo munkaraadkooda iyo fujuurkooda ha kaga jawaabina inaad hub u qaadataan oo ku baxdaan oo la dagaalantaan taasi dhib ka weyn baad wadaan markaa dhibaato ka weyntay iyagu hayeen ayaa ka dhalanaysa xadiidka cabdullaahi ibn mascuud sidoo kale nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa imaan doona buu rasuulku nabi ma jiro ambiyada ka mid ah ilaa markii ilaahay soo saaray wuxuu lahaa dad isaga raacsan oo rumaysan oo asxaab khaasa buu lahaa kadib asxaabtaasi way tagayaan waxaa ka dambaynaya dad xun oo ku hadlaya waxayna samaynaynin hadalkooda iyo ficilkoodu iskhilaafayo oo samaynaya waxaan shareecada waafaqsanayn oo iyo laftoodu inkirayaan oo fiicnay bay samaynayaan markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ruuxii gacantiisa kula dagaalamo waa markuu awood leeyahay waa mu'min buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxii carabkiisa kula jihaadana waa mu'min buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxii qalbigiisa kula jihaado qalbiga ka kahdana waa mu'min buu nabigu sallallahu alayhi wasallam laakiin ruuxii inta midna aan samaynin hada qalbigiiba hadaad ka kahan weyday bimaana raali way qalbigaagu waa ama caada way oo dibba uma arkaba halka markaad gaadho nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam meesha wax ka dambeeyo iimaana haba yaraadee qalbiga kuma jiro haddaad mu'min tahay marka waa inaad xumaanta ka sariigato oo aad xumaanta nacdo oo aad xumaanta ka xajiimooto oo ay ku dhibto ugu yaraan qalbiga aad ka dhibsato laakiin inaad xumaantii raali ku noqdo ama aaba taageertaba ka daran ood garab istaagto calashaani qabiil dartii qabyaalad ama koox daraadeed ama waxoogaa masaalixood ku qabto daraadeed inaad munkarka iyo xumaanta garab istaagto waxay daliil u tahay sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wax iimaan oo meesha ka dambeeyo ma jiro nabigu sallallahu alayhi wasallam halis waay marka sidaas daraadeed ummadani waa ummadii ilaahay oo u xil saaray inay wanaaga faafiso xumaantana ay ka hortagto xilkaasina waa ka wada dhaxeeya xataa muslimka faasiqa ah ee xumaanta sameynaya ee islafihiisa u daran ee zinada iyo khamrada iyo xumaanta sameynaya munkar markuu arkiyo wax shariicada khilaafsan inuu reebo waayo mas'uuliyadaas uu qayb ka yahay ismana diidaysa isagoo lafihiisa u daran oo khaldan oo khaladaad sameynaya inuu haddana xumaanta jirto uu qayb ka noqdo sidii looga hortagi lahaa maxaa yeelay mas'uuliyad ilaahay saaray waayo dambiguna waa gooni xilka ilaahay ku saaray inaad gudatana waa gooni arrintaas marka waa arrin ummadeed ee arrin kooxeed ma aha waxaa maanta walaalayaal in ugu socda haddaynu nahay bulshadan mukhattataad fara badan qorshayaal fara badan oo ay gaaladu wataan oo gaala raacyadu wataan oo dad la soo isticmaalay ay wataan qorshayaal fara badan oo kolba dhinac laynaga keenayo oo inta inugu hadhay diin ahaan iyo akhlaaq ahaan la doonayo in xididada loogu siibo oo innaga iyo gaaladu aynaan markaa waxba ku kala duwanaanin الله بانا قرآن كوشة تبارك وتعالى حسدا حسدد أي إذن حستيان درادت بفضائش يوناق إلهي إذن سيي أي دونيان إن أي لدق اللمانو يقو كلا أد نقطان أرنتاس مركا وحيو باهن تهي ومدو إني وعي لا دهي ويفوت شغن تهي ويسوت شيدو وأي إلا شتو دين تيدا وي إلا شتو أخلاق ديدا oy ilaashato wada jirkeeda oy ilaashato ku xidhnaanta rabbigeed ay ku xidhan tahay oy ilaashato fadiilada iyo wanaaga iyo khayrka ilaahay ku fadilay oo ummado lumay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wanaaga iyo khayrkaad haysataan uu ka qadiyay
oy ahayd iyaga in la hanuuniyo oo khayrka loo bandhigo oo diinta loo soo jiido oo naarta laga badbaadiyo oo loo naxariisto wixii halaysnaa annaga in muxuu ahay aan wax ka raadino oo dhaqamadoodii aan raadino oo iyaga daba luflufno oo aynu wax ka doonano atastabdiluuna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr war ilaahay baa idin fadilo idin karaameeye wax karaamada laga qaaday maxaad wax uga raadsanaysaan sharci dhamaystiran buu ilaahay idin soo dejiyay maxaad qashinka iyo luflufka gaalada iyo waxa iyaguba ku baaba'een idin daba dhigay karaamadan ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo wanaagan alxamdulillah inta tiraadaan ma difaacatan oo ilaa shaytaan waay waxay u baahan tahay arintaasi marka in aad iyo aad loo foojignaado maalin baqab maalin basi maalin bawaji maalin baqolo cusub maalin bawajiye cusub waxa ugu darana waxa waay dhacdo mar ama koox ku dhacday ama shakhsi ku dhacday waxa ka halisan in ummadan loo jideeyo shuruuc ilaahay diintiisa khilaafsan oo intaasoo tobanaan ama boqolaal sano oo soo socota lagu xukumi doono oo diintii akhlaaqda lagu burburin doono in la meel mariyo gaala ku guulaysato inay meel mariso halis ka weyn ma jirto inta dib dhacaya oo bulshada muslimka dhexdeeda ka dhacaya wax ka halisan ma jiro shuruuc gaalo in dal muslima inta loo jideeyo haddana lagu dhaqo arintaasina kolba qaabay ku imaan wax laga daalayana ma gaalada maanta joogta iyo hay'adahoodii iyo dadka u shaqeeyana kama daalaan markay waxoogaa caqabad waajahaan oo darbigu ka hor yimaado ma daalayaan intay darbiga ka laabtaan bay doonayaan mar labaad dirishada inay ka soo galaan haddana waa isku dayayaan duruufteeday sugayaan dadkeedii bay sugayaan maanta hadday u socon weydo berri bay marsiinayaan yacni wax way qorsho ay ugu talagaleen waaye maalinba dadkeeda bay doonayaan in ay marsiiyaan waa maalinka u suuroobi karto waaye waxaa markhaati idinku ah soomaalida shuruucda qoyska la yidhaahdo ama xuquuqda dumarka la dhaho waxaa la isku dayay in loo sharciyeeyo oo shuruucdeeda la geliyo 1975 afartan sano ka hor ku dhawaad waay waa xilliga United Nationska gabdhaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah intay lugooyeen ay u soo dhiibeen shuruucda la yiraahdo shuruucda xeerka qoyska dawladdii xilliga jirtayna ay qaadatay madaxweynihii wadanka ka talinayayna uu bilaabay inuu ku jeesjeeso aayaadka dhaxalka culimadii Soomaaliyeed oo xilliga joogtayna ay diideen oo ka hor yimaadeen 10 kamidana tiirka la istaajiyo la toogtay xeerku waa xeerkii mid ka daran maalinka gabdho Soomaaliyeed oo la soo lugooyay iyaguna loogu talagalay ummadooda inay lugooyaan ayaa arinta keenay oo dawladda u keenay dawladuna qaadatay oo kacaankii qaatay ummadana heerka lagu gaarsiiyay dhageysta gabdhihii hogaaminayay kamid arinta iyada oo YouTube-ka ku jirta iyadoo ka sheekaynaysa Maryan Xaaji Cilmi dhageysta xaqiiqada waxa ku soo baxaysa ummadan siday gaalo ugu isticmaashay dumarkii hablihii muslimaadka ahaa aqoonta lahayn iyo sida ayaguna u lugeen ummadoodana u lugooyeen markii culimada la yeelay maxaa ka dhacay halka waxa ka bilaabato taafay musiibada ilaa iyo maanta aan la saldhigi la'anahay halkaas ka bilaabatay ma 40 sano oo tiih iyo wareer ah oo arintaasi ay keentay 40 sano kadib miya hadana xeerkii xeer ka daran oo ka magaxum oo ka foolxun miya hadana maanta ummadda leeyahay gabdho Soomaaliyeed intay keenaan qaata oo ma waxa la doonayaa hadana 80 sano dambe inaan tiih ku sii jirno xuquuqda Ilaahay hadana inagu sii habsato waa ajaayib way gaala ma daasho
dadkeeduna ma daalaan laakiin kolba waxay tijaabiyaan bulshadaasi iyo siday u baraarugsan tahay tijaabo waaye ku day way kadibna cadhada bulshada imtisaas lagu sameeynaya waa la nuugaya waa la dabcinaya haddana mar kale la sugaya sidaas daraadeed waxa la doonayaa inaynu foojignaano oo waxa lagu socdaay waa dhaqankeena iyo akhlaaqdeena iyo diinteena iyo akhiradeena iyo adduunkeennaba rag iyo dumarba saalix iyo faasiqba culimiyo caamaba madax iyo minjaba kulli inaan taagnaano waa hawsha iyada xilli walba waa in laga hortago waxyaalaha noocaas oo kale ah oo aynu noqono ummad diintooda ilaashada laga daali maayo inaguna daali mayno ummadda Soomaaliyeed aad bay u mahadsan tahay rag iyo dumarba wiilal iyo gabdhaba cid walba ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr iyo baraka idin siiyo maanta waad baraarugsantihiin baraaruga aad baraarugsantihiin waa mid keentay inna kayda ash-shaytaani kaana dha'ifa haweenaydii shalay dhaaranaysay oo ku haysay walle inuu mari ama muqdisho ka tagi wax yar kadib inay afka furato tiraahdo ma wadanin waxan mana taageerahayo inna kayda ash-shaytaani kaana dha'ifa saasay u tabardaran yihiin oo awoodoodu intaasay dhan tahay markay arkaan ummad soo jeeda oo dhaqankeeda akhlaaqdeeda difaacanaysa laakiin maalinkaad seexato waa lagu marsiinaya صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك